kulanti wacan daawadayaal meel walbo daafaha dunyada aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij xiiso leh aynu ku eegayno doorashada gaarka ah ee ku soo fool leh dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Minneapolis guud ahaan gaar ahaan degmada lixaad taasoo mas'uulkii jagadaasi hayay u baneeyay xilliga doorashadani gaarka ay dhici doonto waxa uu noqon doonaa hadduu Ilaah yiraahdo bisha 8 11keeda waxa isu soo sharxay musharaxiin badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo doonayo inay dadkooda matalaan waxaana kamid ah Jamaal Cusmaan oo isaga maanta barnaamijka aynu ku wareysan doono Jamaal kusoo dhawo Somali American Media ugu horeyntii aan ku bilaabay dad badan ayaa suuragal ah in isweydiinayaan waa kuma Jamaal ma noo sharxi kartaa qofka ama shakhsiga uu yahay Jamaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أتبع محسن محمود فرصة وناكسن وعيسيسين مقعي وحال دا جمال حسن عثمان وحانا هين دانليرا ومقالدان كسو كوري لا تنكي سنة ودن بي غارهان حافظان وود 6 الحمد لله وحايد شو غرير حاس يشان عرورة وحانا هين حافظان كسو شقينيي 15 sano u dambeeyay gaar ahaan dhinaca social service ama non profit kala soo shaqeeyay niyo haddaan wax yar kaaga warramaan shaqooyinkayga shaqooyinka bulshada waaye waxaanan ahay nin mataqaana mar walba bulshadeena jecel hormariyo mar walbana mataqaana u istaaga dadkeena hadda shaqada gaar ahaan ah 7 sano u dambeysay waxa waaye guryaha waa dadkeenu waa ogtahay waa dad guryo kireystayaal ah marka xaafadana boqolkiiba 80 dadka guryaha way kireystaan guryaha malaha marka anigu waxaan dadka xuquuqdooda mar walba u soo dirira guri laanta ka jirta dhibaatada ka jirta mar walba tasaara mataqaana xoog saara dhalinyaradena oo drugska iyo mataqaana xumaantada iyo waxyaalahaasna galay mar walba waxaan ahay ninkii mataqaana hor istaagi jiray la tali jiray waaridka la shaqay jiray marka niyahow Jamaal waa nin saasa waa nin aqoon soo bartay waa nin jaamacad ka soo baxay waa nin xaafadana u soo dadaali jiray Jamaal maxaa kugu dhiirigeliyay inaad isu soo sharaxdo xilkan magaalada Minneapolis ee degmada Ward 6 inaad matasho dadka degan adigu aniga waxa igu dhiirigeliyay anigu waxaan isku arkaa nin shaqadiiba horeyba u soo hayay oo mar walbeeto dadkiisina hormariyo shaqooyinkan soo qabtay ayaa meeshan mataqaana igeynaya iyo aqoontayda igeynaysa saas daraadeed xaafadan waxay u baahan tahay qof dhalinyaro ah qof mataqaana aqoonta u leh shaqada inuu qabto qof mataqaana dadkeenina u dadaala oo saarta mataqaana meel weyn ay ka taagan yihiin dadkeena oo saarta saas ayaa ugu dhiirigelisay aniguna markaa meesha tago waxaan ahay nin shaqadii experience u ah nin mataqaana 7 sano ka soo shaqeynaya shaqadan shaqa la mid ah dadku markay i weydiiyaan ay dhahaan sababta u ordis maxay tahay anigu waxaan dhahay shaqadayda ay geysayba waxaan ahay advocate oo qof xaafadan bulshada aad ugu soo ololeynayay xilligan lagu jiro waa xilli adag in badan oo dadka kamidana waxaa saameeyay aafada coronavirus maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad adigu isu soo sharaxdo sama ka fikirtay aad baa uga fikiray xilligan xilli ka wanaagsan oo qof xaafadu u istaago ma jiro xilligan waa xilligii ay u baahan tahay xaafadeena qof aqoon bartay xaafadeenan oo communitygeena oo Ward 6ka dhibaato weyn ayaa soo gaartay mataqaana xanuunkan soo gaaray dadkii oo shaqadii ka tagay dadkii oo guriyada ku xiran dadkii oo mataqaana shaqooyinka ka shaqay jireen mataqaana ka fariistay xanuunka daraadeed marka anigu markaan arintan ka fakarayay dad badan ayaa mataqaana markii hore igu baraarujiyay oo Yaroniyo Jamaalow dad meesha ka soo shaqeeyay dad shaqooyinka soo qabtay dadka mataqaana hoggaanka u haya xaafadda ayaa igu yiri nin waxa tahay xaafadda u qalma ilaa experience-gaaga aqoontaada mataqaana baa looga baahan yahay siri hawlka dhinaca coronavirus iyo waliba xilligan lagu jiro aan tilmaamay maxaad is leedahay adigu waad soo kordhinaysaa marka aad si gaar ah u taabato anigu waxaan jeclahay xaafadan inaan ku soo hordhiyo boqolka maalmood u horeeya in aan mataqaana aan fiiriyo war dhibaatada soo gaartay maxay tahay xanuunkan soo bilowday ma garat dadkii businessadii waxa ka tagay dhaqaalihii baa ka dhacay dadkii mataqaana shaqooyinkii ma haystaan guriyii ma bixi karaan marka anigu waxaan xoog saarayaa dhibaatada uu xanuunkan COVID-19 uu gaarsiistay baa marka u horeeyo xafiis ku fariisto
ayaan mataqaanaa xoogga saarayaa dhibaatada uu geeyey maxay tahay ka dhowna dhibaatadaas aan uga soo kaba lahayn community ahaan. Jamaal, booskan hadda aad isu soo sharaxday waa boos ama jago ama kaalin dadka Soomaalida ah wax ku ool u ah, waana xaafadda ay degan yihiin oo ay u badan yihiin. waxaa jiray mas'uulkii ka horeeyay ee hayay inuu ballan qaaday waxyaabo uu soo waday oo ay kamid tahay moolka, kaasoo in badan oo dadka kamid ah ay u hanqal taagayaan noqonna doono hadduu furmo ganacsi Soomaalida u madax bannaan oo xor ay u yihiin. maxaa adiga musharax ahaan iminka kaaga qorshaysan hawshaas iyo sii wadideeda? aniga arrintaas aad iyo aad baan ugu farxay. dadkeenu 30 sano halkan degan yihiin ilaa haddana marti ahaan bay dareemayaan way u baahan yihiin arrinta moolka. walaalkan wax wanaagsan buu soo qabtay. moolkana waa soo bilowday magaaladu, ma garatay? marka arrinta moolka waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, dadkeenana mataqaana ay u baahan yihiin oo maxaa la dhahaa shaqo ay abuuraysaa. maxaa la dhahaa meeshii dadkeena waxbay qabsanayaan, meelay xurnimo u leeyihiin, meelay mataqaanaa aysan marti ahaan dareemaynin, meelay ayagu mataqaanaa xukumayaan. arrintan waa arrin aad iyo aad aan ugu bogay. waxaan anigu ballan qaaday arrintan inaan sii wado, aanan dhammaystiro. haddana waxaan soo wadnaa arrimo bulshada faa'iido weyn u keeni doona oo mataqaanaa wax weyn oo qaban karoon xaafadeena. shaqooyinkaaga ama waxqabadkaaga waxay u badnaayeen dhinaca guryaha oo aad ka soo shaqaysay, muuqatana inaad khibrad u leedahay. maxaa kaaga qorshaysan dhinacaas guryaha? se maxaad ka bedelaysaa sida hadda ay wax yihiin? dadka waxay og yihiin dhibaatada guryaha ay elevator ka soo degayaan ka jirta, ma garat? qofka waxaan ahay qof taabanaya dhibaatada haysata oo wax ka qabanaya. haddii aan ku soo noqdo guryaha ay degan yihiin, violation badan ayay suubiyaan. guryaha waa aragti dad baa ka dhaca, guryaha waa dad waayeela oo ilaahay u naxariisto noloshoodii ku waayey. marka waxaa meeshan sharciyaa jira la daba raaca. dadkan guryaha kiraysta xaafaday degan yihiin, dadkii firekii ma kacayo, maxaa la dhahaa albaabadii ma xirmayaan, elevatorradii waa isxirayaan. haddeerta xataa waxaan ka shaqaynayaa guryaha waxaa jira COVID-19 ama dadkii xanuunka laga helay. xaafado isku degan, elevatorkii dad badan baa soo wada gelaya, xanuunkii ku faafaya xaafadda. waxay ahayd inay soo hordhigaan meelaha marka elevatorka laga soo dego oo kaleeto bahasha gacanta lagu haysto, sanka bahasha la gashto. waxyaalahaas guryaha mas-uul ayaa ka saaran dadka guryaha leh. Jamaal, ma jirto Soomaali la arki karo oo gurya la'aan daraadeed bannaanka u daadsan ama homeless ah? waxyaalaha loo yaqaano homelesska ee guri la'aanta ah, dadka darbiyada jiifo Minneapolis kama jirto. maxay tahay guri la'aanta dhibaatada ah oo aad uga hadlayso oo ku celcelinayso? su'aal wanaagsan waaye. dhibaatada jirta waxa waaye Soomaalidu marka horeeto waa dad muslim ah, waa dad isku xiran, ma garatay? anigu shaqadeeda maalin walbaan arkaa hooyo guri la'aan hayso, qof adeer waayeel ama hooyo waayeel oo guri la'aan hayso oo ii yimaado guri baa u baahannahay dhaha. dadkii seniorka ahaa ama dadkeena waayeelka guriyayaashii way ka buuxaan, 4 sano 5 sano ay sugayaan. dadkeenu dariiqa ku arki maysid. dad islaama waaye, waa dad isku xiran. maanta haddii ama eedada ama adeerka ama qof Soomaaliya aragtidba guri la'aan yahay, gurigaa soo gelinaysaa, mataqaana waa soo dhawaysanaysaa. laakiin xaafadda waxaa ku caddaynaysa guri la'aan inay ka jirto. dad baa nala degan ajnabi ah, dadkan ay dhahaan Native Americanka nala degan, waa aragtay teendhooyin bay meel walba ka dhiseen. anigu waxaan ahay qofkii mar walbeeto 10 sano u dambeeyey dhinaca homelesska xoogga saari jiray oo waxaan tegi jirnay capitalka ama meesha sharciga laga suubiyo St Paul. bil summer walbeeto bisha 5aad baan tegi jirnay May. waxaan dhihi jirnay Minnesota guri la'aan baa ka jirta, Minneapolis waxaa ka jirta guri la'aan. dadkii waa u jeedaa. marka waxa u baahannahay xaafadda inaan dhaqaale gelino, magaalada dhaqaale geliso. guriyayaasha way dhismaan, Minneapolis way ka dhismaan, laakiin xagee ka dhismaan? downtownka iyo uptownka ka dhismaan. halkan guri laga taagay arki maysid. sababta waxaa keenay waxay u baahannahay inay mas-uulka saaran Minneapolis ay mataqaanaa wax ka qabato xaafadan oo dadka guryaha dhisa tax break la siiyo oo la dhaho dadkii la dhaho halkan kale guryaha ka dhista lacag baa helaysaan, taxiga la ka qaadayaa. marka dhibaatadu walaal way jirtaa. guriyaashuna saan sheegayba 80% dad guryaha waa kireystaan. haddeertan adoo Maxamuud haddaad tagtid magaalada aad dhahdo guri baan raadinayaa, aad iyo aad bay kugu adkaanaysaa guri inaa heshid. gartay laakiin si kale marka loo eego Jamaal, adiga kaliya ma tihid
cidda doonaysa Soomaalida inay matalaan oo wax u qabtaan oo soo sharxay sidoo kale waxaa jira musharaxiin kale oo ku garab ordayo ayaga laftirkooda leh haddii annaga nala doorto waxaan qabanaynaa maxaa uga duwanta anigu waxaan ahay nin mataqaanaa guryaha ka soo shaqeynaya dhibaatadan og dadka Soomaalida hayso waxaana ku darayaa guryaha dadkeena way kireystaan dadkeena waxaa lagu hayaa dhibaato dadka guryaha ka kireysta guryihii inay ka saaraan carruurtoodii bannaanka inay geeyaan carruurteenna waa aragtay drugs iyo mataqaanaa bannaan taagi waxaa sababta keentay sababta u weyn waxa guryaha baa laga soo saaraya dadkii xornimadoodii ayaa mataqaanaa iyo xuquuqdoodii ayaa lagu xadgudbayaa oo lease violation iyo waxyaalahaasi ku keenayaan anigu mar walba waa hor istaagaa waxaan dhahaa qof walbeeta dad badan baa ii yimaada dhaho gurigii baana laga soo saaray ama guriga warqadna kuu soo diray Soomaalida daawanaysa ama dadka muslimka daawanaya waxa uu sheegayaa guriga inaan qofna ka saari karin qof guriga waxa kale uu ka saari kara maxkamad waa dadkeena inay ogaadaan waaye sharciga dadka aqoonta bartana inay tusaan waaye xornimo ayaa ku leedahay qofka manager ku ama landlord ku guriga haduu ka baxo guriga kaama saari karo maxkamad ka saari karta guriga xaafadan waxay u baahan tahay qof aqoon leh qof mataqaanaa xaafadii wax ka qaban kara qof mataqaanaa wax ku soo kordhi kara kaasi waxa uu ahaa Jamaal Cusmaan oo kamid ah musharaxiinta isu soo sharxay xilka degmada Ward 6 ama degmada 6 ee magaalada Minneapolis in uu asagu ku matalo dadka siina dhameystiro waxyaabo badan oo dabcan haaf maray barnaamijkan waxaa idin la socodsiinayay aniga oo Maxamuud Dulyadayn inta barnaamijkan oo kala hawada inuu ku kulmaynana waxaan idinkaga tageynaa fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh